77 xarumood oo ku yaala Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya ayay 27,000 oo arday ah maanta ugu fariisteen imtixaanaadka dugsiyada sare oo sanadkii labaad ay qaadayso dawladda Soomaaliya. Muddadu ay imtixaanka socdo waxaa kormeeri doona 1400 oo qof kuwaas oo la socon doona waqtiyada ay bilaabanayaan imtixaanaadka in ardaydu aysan qashin. In ka badan 1000 askari oo ka tirsan ciidamada nabadgelyada dawladda ayaa sugi doona ammaanka goobaha ay imtixaanaadku ka dhacayaan. Cabdiraxmaan Cusmaan Daahir wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda Soomaaliya ayaa ku sheegay sababaha ay dawladdu u qaadayso imtixaanaadka dugsiyada sare inay tahay in la qiimeeyo heerka waxbarasho ardayda ka qalin jebinaysa dugsiyada sare. Waxaa waajib ah in arday kasta oo galayo imtixaanka heerka labaad ama dugsiga sare in waxbarashadiisa la qiimeeyo, la diiwaan geliyo, la kaydiyo, lana ogeysiyo natiijadiisa. maanta oo ay tahay taariikhda 20 bisha Maajo 2017 waxaa guul weyn oo ah in aan qaadayno imtixaankii guud ee shahaadiga ahaa ee heerka labaad ama dugsiga sare. imtixaanka waxaa u fariisan doonto tiro gaaraysa 23,000 waxaa lagu geli doonaa 77 xarumood oo dalkoo idil ah laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa Kismaayo. waxaa ka shaqeynaya imtixaanka 77 qofood oo kormeerayaal ah, 77 qofood oo kaaliyayaal ah. waxaa ka shaqeynaya ilaa 1400 oo ilaaliyayaal imtixaanka ah. sidoo kale waxaa ka shaqeynaya imtixaanka dad gaaraya 1000 qofood oo ilaalinaya amniga iyo dad ka tirsan wasaaradda waxbarashada oo imtixaanka howliisa. Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa booqday dugsiga 15 May oo kamid ah goobaha ay ardaydu ku galayaan imtixaanaadka. Khayre isagoo ay weheliyaan xubno ka mid ah golaha wasiirada waxa uu daahfuray imtixaanaadka dugsiyada sare oo maalmahan socon doona. waxaa muuqanayay ra'iisul wasaare Khayre iyo wasiirka waxbarashada oo mid ardayda ugu qaybinayay warqadaha imtixaanaadka. Xasan Cali Khayre waxa uu guul u rajeeyay dhammaan ardayda maanta u fariistay imtixaanaadka dugsiyada sare isagoo ay sheegay in xukuumaddiisu ay ku dadaali doonto tayeynta waxbarashada dalka. waa maanta runtii maalin ahmiyad weyn leh in 27,000 oo arday laga soo bilaabo dawlad goboleedka Puntland ilaa inta dawlad goboleedka Jubbaland u dhaxaysa in 27,000 oo arday Soomaaliyeed ay galayaan imtixaanka dugsiga sare. waa tilmaan muujinaysa in dalkeen uu leeyahay rajo wanaagsan in arday Soomaaliyeed oo insha Allah kulligood ama intooda badan ay mustaqbalka jaamacada gali doonaan, xirfado kala duwan baran doonaan, noqon doonaan dhalinyaradii mustaqbalka dalkan hogaami lahayd inay u fadhiyaan imtixaanka. aad ayaan ugu faraxsanahay. waxbarashadu waa sida kaliya oo aan uga bixi karno dhibaatada dalkan ku soo habsatay. dhalinyarada oo ah 70% shacabka Soomaaliyeed macnaheedu waxay tahay haddii 70% shacabka Soomaaliyeed ay dhalinyaro tahay wadankani fursad badan ayuu leeyahay. waa sanadkii labaad oo dawladda Soomaaliya qaado imtixaanaadka dugsiyada sare tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxaana tan muujinaysaa in hadda nidaamka dawladnimo uu ku baahayo dhammaan gobolada dalka Soomaaliya. Aweys Maxamuud Jilcow, RTN TV, Muqdisho.